magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa waxa ay sidoo kale tahay caasimadda deegaanka Oromia, taasi oo uu qeexayo charterka ama sharciga lagu aasaasay magaaladani. Haddaba, dhowaan ayuu maamulka magaalada Addis Ababa ee ay hoggaanka u hayso Marwo Adaanech Abeebe waxa uu soo saaray shuruuc jidaynaysa in ardayda ka soo jeeda qoomiyadda Oromadu ay xaq u leeyihiin inay ku bartaan afkooda hooyo dhammaan iskuullada iyo fasallada kala duwan ee ay wax ka bartaan. Haddaba, kooxaha iyagu sida weyn u dhaliila hannaanka dimuqraadiga federaalka ah ee ku salaysan qoomiga ayaa waxay bilaabeen buuq iyo sawaxan arrintaasi ku saabsan. Dhanka kale, waxaa soo baxayay eedeymo sheegaya in iskuullada qaar ay ardayda aan ahayn qoomiyadda Oromada ama aan ka soo jeedin qoomiyadda Oromada ay ku qasbeen inay qaadaan heesta ama astaanta calanka ee deegaanka Oromia. Waxaa xusid mudan in sharciga lagu aasaasay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya uu sidoo kale qeexayo inay tahay xarunta maamulka deegaanka Oromia. Haddaba, maayirka haatan ee magaalada Addis Ababa waa Marwo Adaanech Abeebe oo iyadu ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa waxay si weyn u difaacday in ardayda qoomiyadda Oromada iyo dhammaan qoomiyadaha kale ee dalku ay xaq u leeyihiin inay afkooda hooyo wax ku bartaan. Dhanka kale, maayiradda ayaa waxay sheegtay in iskuullada laga qaadayo astaanta calanka deegaanka Oromadu ay yihiin kuwa ay sida tooska ah u maamulaan maamulka deegaanka Oromia ama kuwa sida gaarka ah ay wax ugu bartaan ardayda qoomiyadda Oromadu. Dhanka kale, waxay intaasi ku dartay in tani aanay noqon karin ficil ama arrin ay gabaad ka dhigtaan kuwa iyagu sharwadayaasha ahi. Waxaa xusid mudan in xarunta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ay tahay mid ay marar badan ka yimaadeen isqabqabsi ku salaysan arrimaha qoomiga iyo qaabka loo maaraynayo maamulka magaaladaasi. Magaalada Addis Ababa ayaa waxay dhacdaa bartamaha deegaanka Oromia, waxaana dhinac walba ka xiga maamulka deegaanka Oromia, taasi oo sababtay in dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda deegaanka Oromadu ay ka barakacaan agagaarka magaalada